قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. بسم الله الرحمن الرحيم كلن وعان oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galcad media qodobada ku daawad doontaan waxa ugu dooran jahwareer culus oo ka taagan soo xulista xildhibaanada labaad ee dowlad goboleedka Galmudug iyo ku dhawaaqista guddiga doorashada maamulkaasi dowladda Sacuudiga oo aqoonsatay baasaboorka Soomaaliland si dowladda Qatar uga tartanta Soomaaliya dagaal dad badan ay ku nafuwaayeen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka Sanaag Soomaaliland dowladda Kenya oo soo iibsatay diyaarado iyo hub badan si ay shabaab iskaga caabido dowladda Soomaaliya oo soo dhaweysay maleeshiyad cusub oo dagaal kala hortagay shabaab warka dibadda daawadayaal waxa kamid ah Iran oo sheegtay in cunaqabataynta Mareykanka ay dhibaato u horseedi doonto shacabka dalkaasi hagaaga haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawaday subscribe channelkan si aad u hesho warar ku saabsan akhbaaraadka caalamka intii aad maqasheen iyo qodobo kale ku soo dhawaada daawadayaal قلعة ميديا. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. قلعة ميديا نيوز. wararka ka imaanaya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug ayaa sheegay in jahwareer uu ka taagan yahay magacaabista guddiga doorashada maamulka Galmudug Muraniis Yijiid xoogan ayaa ka taagan soo magacaabista guddiga doorashada maamulka Galmudug iyadoo arinta laga dareemayo deegaanada gobolada Galgaduud iyo Mudug odayaasha dhaqanka ee ka soo kala jeeda magaalooyinka Hobyo Gaalkacyo Cadaade iyo Balanballe ayaa ku doodayay in dowladda Soomaaliya ay faragelin xoogan ku hayso dhismaha maamulka Galmudug madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wado qorshe uu ku magacaabay sida la sheegayo guddiga doorashada maamulka Galmudug iyadoo uu taagan yahay khilaaf guddiga matalaya beelaha habargadir ee ka yimid magaalada Hobyo ayaa cabasho ka muujinaya hanaanka ay dowladda Soomaaliya ku magacaabayso guddiga doorashada dowlad goboleedka Galmudug jahwareer siyaasadeed ayaa xilligan ka taagan magacaabista guddiga doorashada iyo soo xulista xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Galmudug beelaha deegaanka Galmudug ayaa xilligan qaba walaac xoogan ku aadan dhismaha Galmudug oo ay doonayso dowladda Soomaaliya inay yeesho sidii ka dhacday magaalada Baydhabo sanad ka hor faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo mar kale dib uga qarxay deegaanada hoostaga degmada Ceelaf Weyn ee gobolka Sanaag dagaalka ayaa waxa uu dhaxeeyay laba maleeshiya beeleed oo wada degan halkaasi wararka ayaa sheegay in dagaalka uu yimid kadib markii maleeshiyadkaasi ay isku qabteen arrimo la xiriira dhul daaqsimeed gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbro ayaa xaqiijiyay in dagaalkaasi ay ku dhinteen ku dhawaad 5 qof kuna dhaawacmeen 9 kale sidoo kale wuxuu intaas ku gudoomiyaha in xiisadaasi ay ku baxeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliland isla markaana haatan xaaladu tahay mid degan xiisadan dib u soo cusboonaatay ee gobolka Sanaag ayaa ku soo aadaysa iyadoo saacadihii la soo dhaafay colaadaha gobolkaasi oo si kale looga hadlay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo sheegay in ka maamul ahaan uu ku hortagi doono colaadahaasi sida uu daabacay wargeyska The New Arab dalalka Khaliijka ayaa sare u qaaday saameynta ay ku leeyihiin Soomaaliya dowladda Qatar ayaa dhawaantan ku dhawaaqday inay dhisayso dekedda magaalada Hobyo ee gobolka Mudug taa oo ay ka soo horjeedaan dalalka Imaaraadka iyo Sacuudiga oo sida wargeysku daabacay taageero siiya dowlad goboleedyada ka soo horjeeda dowladda dhexe warbixinta wargeyska ayaa sidoo kale lagu sheegay in Sacuudiga ay aqoonsatay baasaboorka Soomaaliland oo sheegtay inuu ka madax bannaan yahay Soomaaliya inteeda kale inkastoo aysan jirin war ka soo baxay boqortooyada Sacuudiga oo lagu shaaciyay inay aqoonsadeen baasaboorka Soomaaliland xurgufta u dhaxaysa dalalka ugu tunka weyn Khaliijka sida Qatar Sacuudiga iyo Imaaraadka oo bilowday wixii ka dambeeyay cunaqabataynta ay Qatar saareen isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayay sanadkii 2017 ayaa wargeys ku sheegay in saameyn xoogan uu ku yeeshay hanaanka siyaasadeed ee Soomaaliya kadib markii dowladda Soomaaliya ay iska diiday inay ku biirto isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa geeska Afrika u haysta goob muhiim ah oo ay ka taageeri karaan howlgalka ay ka wadaan gudaha dalka Yemen
inkastoo dowladda qatar aysan Soomaaliya ku lahayn saameyn military haddana Dooxa ayaa adeegsata awood dabacsan taasoo ah in maalgelin dhaqaale ay geliso si ay saameyn u yeelato siyaasadda Soomaaliya warbixinta wargeyska ayaa sidoo kale lagu sheegay in dalalka caanka ah ay Soomaaliya ka dhigteen meel ay ka egtaan danahooda iyagoo iska indhatiraya saameynta aan wanaagsaneyn ay ku yeelan karto dal 30 sano ee la soo dhaafay la daalaadhacay faqri iyo amni darro sidoo kale dadaalada caalamku ay qaramada midoobay hogaaminayso ayaa ku fashilmay in horumar magac wanaagsan leh ay Soomaaliya ka soo hooyaan sida la dagaalanka burcadbadeeda iyo argagixisada dowladda Kenya ayaa shaacisay in ku dhawaad 10 diyaaradood oo nooca dagaalka ay ka soo iibsatay dalka Mareykanka wasaaradda difaaca Kenya ayaa xaqiijisay in diyaaradahaasi oo gaaraya 6 helicopters ah ay dhawaan tagi doonaan Kenya sidoo kale wasaaraddu waxay sheegtay in dowladda Mareykanka ay tababari doonto duuriyaasha ka xil lahaa diyaaradaasi warka ka soo baxay wasaaradda difaaca Kenya ayaa sidoo kale lagu shaaciyay in diyaaradahaasi saldhig looga dhigayo garoonka ciidanka cirka ee Mumbai ee Mombasa isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan dagaalka lagula jiro kooxda Shabaab dowladda Kenya ayaa haatan dagaal culus kula jirta dagaalyahanada Al-Shabaab oo inta badan weerar xooggan ka fuliyo gudaha dalkeeda iibshada diyaaradaha cusub ee Kenya ayaa ku soo aaday iyadoo dhawaan Shabaab ay burburisay gawaari nooca gaashaaman oo ay dowladda dalkaas ka soo iibsatay dalka Shiinaha dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay kacdoonka ka dhanka ah Al-Shabaab dowladda Soomaaliya ayaa soo dhaweysay kacdoonka shacabka ee ka dhanka ah Shabaab ee ka bilowday gobolka Boqol dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya war qoraal oo ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in soo dhaweynayso abaabul kasta oo ka dhanka ah Al-Shabaab sidoo kale dowladda ayaa ugu baaqday guud ahaan shacabka Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan dagaalka adag ee lagula jiro kooxdaasi warkan ayaa ku soo aaday iyadoo shalay koox la magac baxday Cali Qaran oo ah maleeshiya deegaanka ah ay Shabaab kula dagaalameen deegaanka Yabyab oo hoos yimaada magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol waa kooxdii labaad oo abaabushay isla markaana la dagaalanta dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab waxaana kooxdan ka sii horeysay Macawisley oo hadda ka dagaalanta gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ee dowlad goboleedka Hiirshabeelle madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxiixay sharciga guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa kaas oo ansixiyeen baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa gole munaasabad xarunta madaxtooyada qaranka lagu qabtay ayaa madaxweynaha Soomaaliya wuxuu qalinka ku duugay sharciga guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa si markaas kadib loo soo magacaabo xubnaha guddiga oo ka koobnaan doona 9 xubnood sharcigan ayaa ah mid muhiimad gaar ah u leh dalka isla markaana xilligan loo qabo baahi weyn guud ahaan Soomaaliya haddii uu dhaqan galo sharcigan waliba sidii lagu talagalay ayaa waxa uu wax ka bedeli doonaa arrimaha musuqmaasuqa ee ka jira hay'adaha dawladda iyo guud ahaan dalka maanta uu soo gaaray inaan helno tuulkii ama qalabkii qofkii nololkiisa celin waaya uu sharciga celiyo sida uu noo sheegay Sheekh Baaruud diinteenu waa la faraysaa in aan ka fogaano wax alla wixii qaloocan wax alla wixii diinteenu diidan tahay musuqmaasuqa ma aha kaliya lacag la xado musuqmaasuqa waa qofka positionka uu joogo si xun ugu takrifala oo personal level ah isagoo ilaahay ka baqaynin isagoo mas'uuliyadda loo dhiibay aan tixgelinin waa xaqiiqa inaan annaga aan kaga jirno meel hoose weliba waa la duduuray oo tobanka ugu hooseysaa la yidhi laakiin in la caddeeyaa fiican si aan meeshaan joogna la ogaano nambarka ugu hooseeyaanna 194 dal ee adduunka jira waxaan nahay 194 sharcigana wuxuu noqonayaa kii taas sibirka ku sii dejinaya ayuu isagoo noqonayaa waxaan ku hanweynaa waxa weeye oonu diyaar u nahay in sharcigaas hirgeli doono annagu haddaanu nahay dadka ka shaqeeya waxa wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradaha kale ee arrintaa ka shaqeeya diyaar waxaanu nahay kana ballan qaadaynaa dadka Soomaaliya hortiisana ku ballan qaadaynaa sharcigaasi in la hirgeli doono inuu fuli doono inuu dalkan u horseedi doono meel sare aan ku doono sida على عزيزي meelaan ku doono xaq oo ka salaysan markaana daawadayaal warkii dibadda
iiraan ayaa sheegtay in cunaqabataynta maraykanka ay dhibaato u horseeday shacabka dalkaasi. wasiirka arrimaha dibadda iiraan ayaa sheegay in cunaqabataynta cusub ee maraykanka ku soo rogay bangiga dhexe ee dalkaasi ay tahay iskuday uu ku doonayo in raashin iyo daawooyin uga hor istaago dadka shacabka ah iiraan. maraykanka ayaa jimcadii cunaqabateyn cusub ku soo rogay bangiga dhexe ee iiraan, kaasoo uu Trump ku tilmaamay inuu yahay sanduuq qani ah oo madax bannaan, waana tallaabo iiraan lagu ciqaabaya kadib weerarkii lagu qaaday saliidda Sacuudiga. iiraan oo beenisay inay weerarka Sacuudiga ku lug lahayd ayaa wasiirkeeda arrimaha dibadda Maxamed Shariif waxa uu yiri tani waa calaamad rajabeel ah markii cunaqabateyn lagu soo celiyay hal hay'ad. taasi waxay la micno tahay isku day la doonayay in iiraan jiha walba looga dhigo. wasiirka wuxuu hadalkaasi ku daray in cunaqabateynta cusub ay dadka rayidka ah ee reer iiraan ay u diideyso raashinka iyo dawada. xaaladda dhaqaale ee iiraan ayaa hadda aad u liidata maadaama waddanka ay saaran tahay cunaqabateyn dhinacyo badan leh. daawadayaal waa naga intaa oo warkii aad kala socoteen Galcad Media. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho wax kasta oo aan channelkan soo gelino. Galcad Media. Galcad Media News. Galcad Media News. Galcad Media News.